dad badan ayaa naga soo codsaday sida wax u sameyno inay arkaan, balse waa inaan kula wadaagnaa. Laga yaabo adiga laftirkaaga inaad u baahan tahay sida wax u sameyn lahayd ama isku day u sameyn lahayd. Waa tahay fiidiyogan wuxuu iskugu jiraa mahadnaq iyo weliba mid aan tusayno qaabka aan wax u sameyno. waa tahay waxaan ka bilaabeynaa marka ugu horeysa qalabka lagaaga baahan yahay inaad isticmaasho marka aad rabtid inaad sameysid vlog iyo ama aad sameysid waxyaalo lamida short films oo kale. marka aad inaad sameysid u baahan tahay kooda hore waxaad u baahan tahay SmoothX hadaad helayso ama Gamblin DJI hadba noocaad heli karto. kana waa microphone casri ah oo la yiraahdo Rode Go Wireless oo ah 300 oo tilaabo ka badan codka ka qabanaya, isla mar ahaantaana u baahan tahay inaad u isticmaasho inaad wax ku duubato iyo inaad wax ku codeyso labadaba marka aad sameynayso movie ama vlog aad sameynayso. oo muhiim waana u baahan tahay. waa tahay ayagoo boxka ku jira oo waliba aan halkan uga mahadcelinayno dad asxaab qaali nagu ah oo kamid yahay Cabdiqani Maxamed Faarax, Axmed Saciid, Cabdi Fataax, Cali Shameeri, Axmed Jabuuti, Najib Xasan, Ali Ciro iyo Faatax oo ah masha Allah aad weyn ayay u maadsan raggaas oo dhan. waa rag aad noogu weyn mar walbana garabkeena. waa tahay hadda waxaan furaynaa baasha loo yaqaan SmoothX. SmoothX waa nooc ka mid ah gambaliyada adduunka ka jira sida DJI Gamblin kiisa oo kaleeto. SmoothX marka waxay tahay waa gamblinka ugu fiican sanadkan 2021 ayay qaadatay oo ah lagu duubo smartphone-ka waliba qaasatan vlogyada iyo short filmska aad ku duuban karto ayadoo wadata application aad kala soo degi karto Play Store-ka iyo Apple Store-ka, isla markaasina aad ku xiri karto si Bluetooth ahaan isla markaasina aad maamuli karto control karto. application-keedu wuxuu gudaha ku wataa kaamirooyin iyo filtero iyo editing inaba aan caadi ahayn. waxa kaleeto ay leedahay bahashan ee qatar ku tahay inay kaligeed ismaamusho hadaad meel iska dhigto isku xirxirto kaameradana aad daarto adiga oo ka fogaanaya cabirkii aad ugu talagashay, kabacdina meel alaali meesha u jeesato iyo inta aad u socoto iyo dhinacaad aado ay ka daba aadaysa. ayada ayaa ismaamulaysa, isla mar ahaantaana aad ay u fiican tahay isticmaalkeeda. qofkii tijaabiye ayaa ogaan doona. waxa kaleeto oo jira markaad isku xirayso waxay leedahay dhowr qayb oo isku xirayso. ha isku dayin xoog, laakiin waxaad raacdaa tilmaamaha ay ku siinayaan fariimaha ku dhex jira boxka. waa tahay waxaan u soo gudbaynaa microphone-kan. microphone-kan waa microphone inaba aan caadi ahayn. wuxuu gaaraa ilaa 300 oo tilaabo haddii meesha ay bannaan tahay, balse haddii geeda dhaardheer leedahay ama derbi jiro ilaa 200 oo tilaabo ayuu gaarayaa. adiga oo awood u yeelanaya inaad shaatiga intaad hoos gashato meesha aad rabto aad wax ka duubanayso, isla markaasina si direct ay dadka ku maqlayaan. codkiisana caadi ma waana wireless ama waa xarig la'aan, xarig ma laha. asagana waxaa laga heli karaa aad ka dalban kartaa meel walba mar walibana waad u baahan tahay. waa tahay waxaan fiirinaynaa marka la isku xirxiro qalabkan ama la isku geeyo way fududahay inaad sameyso wax walba aad uga baahneed inaad vlog ka sameyso ama film ka sameyso ama adiga oo markaas hadaad tahay dadka isticmaala waxa la yiraahdo live extreme-ka ama live ka soo gala. dabadeed saad u caajisin ayaa waxaad isticmaali kartaa any application telefonkaaga ku jiro ay ka saacidaysaa inaad ku isticmaasho ayadoo movement-gaaga markaasi meesha aad u rabto aad u jeedin karto, kaameradana ay jeedsanayso, isla mar ahaantaana ayna ahayn inaad kaligeed hor fadhida laakiin adoo dhaqdhaqaaq muujinayo gurigii shaqo ka dhaxaysta howl wata ayaad si live ugu tabin kartaa akhbaarta rabtay dadka ama studio-haagii joogo oo aan kursi ku fadhin laakiin soconaya oo dhaqdhaqaaqaya. marka waxaan mar walba leenahay insha Allah waxaan ka soo sameeyno iyo fiidiyoyada dambe aan ka soo sameeyno ayaad kaga bogan doontaa oo aad ku ogaan doontaa quality-ga ay leedahay iyo waliba sida ay tahay. waa aniga iyo Zakion isku duuban oo idin leh. halkan naga daawanaysaan waa VIP cajiib. isla mar ahaantaasna like, share, subscribe dhinacaaga oo faafi.